munaasabada ciidda ee maanta waxay u ahayd shacabka ku nool degmada Caabudwaaq mid uga duwan ciidii hore waxaana loo ciiday si wada jir ah waxaana jiray isdhexmar dhinaca bulshada oo waxa saaranaa ay socodka dadka waxaana lagu arkay ciidamo fara badan oo kamid ah kuwa xasilinta oo la soo tubay wadooyinka si ay u xoojiyaan ammaanka iyo nabadgelyada iyo masaajidda lagu tukanayay salaada ciidda Sheekh Maxamed Macalin oo baraka jaamacadda Bariga Afrika ee Garowe iyo Sheekh Cabdirasaaq Warsame Fiqi oo wakiilka dalada Ar-Rahma oo dowlad ku aadan nabadeynta ka waday deegaanka ayaa farxad ku tilmaamay isbedelka dhinaca nabadda ee laga sameeyay degmada. maanta waxaan aad ugu faraxsanahay ciidan inaan iskugu nimid degmada Caabudwaaq inagu meelo badan iskaga nimid ugu talagalnay in aan la qaybsano walaalaha Caabudwaaq farxadda maanta ay marayaan nabadgelyada iyo raynraynta inagoo ugu talagalnay in aan la qaybsano fattaqullaha wa aslihu dhaata baynikum dib u heshiisiintii dhacday oo 5 bilood lagu naaloonayo maantana aan u fadhino arinta inaan idin la qaybsanaan u nimid waana Ilaahay xamdigi subhanahu wa ta'ala marka walaalayaal ahamiyadda ay leedahay amniga iyo nabadgelyadu wax maanta dadka lagu waaninayo ma marxaati baa laga Cabdirasaaq Maxamed Xareed oo kamid ah guddiga xasilinta degmada iyo taliyaha nabad sugidda qaranka ee dowlad goboleedka Galmudug Korneel Cali Cilmi Yuusuf Ilkacase ayaa uga mahadceliyay shacabka ku nool degmada Caabudwaaq la shaqeynta ciidamada amniga waxa taariikhaha ama dhacdooyinka magaalada kamid ah in Janaayo xilligii madaxweynaha booqashadiisa ka horeysay magaaladu ay kala xirreeda ka wada qabtaan maantana Ilaahay mahad ay tahay oo meel walba oo kamid ah magaalada qofku uu mari karo ka ganacsan karo ku ciidi karo taas marka Ilaahay mahad bay u sugnaatay amniga culimada ka sheekaysay dadka deegaanka odayaasha dhaqanka iyo culimada iyo dhalinyarada iyo haweenka iyo dhammaan dadka deegaanka way dadaaleen amniga waa laga shaqeeyay Ilaahayna uu nagu guuleeyay ciidamaduna waxa waaye waa waajibkoodii qaran loo idmaday aan leenahay wayna shaqeynayaan hadii Ilaahay inta Ilaahay yiraahdo waa dadaalaynaa idinkana waxa la karaba waxyaabaha dhiman in la dhameystiro wasiirka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ee dowlad goboleedka Galmudug Sheekh Mursal Cabdiraxmaan ayaa hambaliyada munaasabada ciidda kadib waxa ugu baaqay dadka muxsiniinta ah in ay caawiyaan kuwa danta yar sidoo kale sadaqada maantay aad bay u fadli badan tahay marka ayadana in la xoojiyo oo farxadda qaybtaas waan uga qayb qaadanaya tan labaad Ilaahay baa mahad iska leh ammaanka nabadgelyada halkaan aan maanta ku joogno intii ka shaqeysay ammaanka Caabudwaaq iyo gobolka oo dhanna Ilaahay agtiisana khayr bay ka helayaan annaga agteedana abaal bay ka helayaan Cabdikariin Axmed Bulxan raadiyaha TV qaranka Caabudwaaq